waxaan rabaa inaan kugu biiriyo 2 talo oo aan rabo inaan idinla wadaago ka dhalinyaro ahaan aaminsanahayna inay door weyn ka ciyaari doonto kor u qaadidda fursadahaaga. Talada koobaad waa inaad samaysatid wax la yiraahdo personal branding ama sumad shakhsiyadeed. dabcan maanta qof kasta oo inaga mid ah waxaynu ka wada simannahay inaynu haysanno shahaadooyin iskool sare iyo xitaa kuwa jaamacadeed. haddii aad jaamacad dhammaysay waxaa jira boqolaal kula dhameeyey jaamacadda. ma jiro wax adiga iyo qofkaas aad shalay kursiga jaamacadda wada fadhideen idinkala saari karaya. haddaba si aad dadka kale u noqotid mid ka soocan yeelo sumad ku gaar ah waxaad adeegsataa Facebook iyo sidoo kaleba TikTok. uga faa'iidayso inaad ku soo gudbisid wixii aad baratay adiga oo xogaan naashnash ah ku daraya. haddii aad awoodid muuqaal ahaan u duub. haddii aadan muuqaal awoodinna cod ahaan u soo gudbi. haddii aadan cod awoodinna ugu yaraan qormooyin kooban oo ay dadku akhrisan karaan nuxurna leh soo geli. joogtay iskana ilaali inaad akoonnadaada u adeegsatid aflagaadooyin qabyaalad iyo wax aan naftaada iyo dadkaagaba wax u soo kordhinayn. arrinta labaad ee aan kugula talinayo waa inaad isbartid luqad labaad oo aan ahayn luqadda aad ku hadashid, gaar ahaanna luqadaha Ingiriishka ama Carabiga. maxaa yeelay marka aad tahay qof luqad labaad yaqaana waxaad tahay qof maskax labaad leh. ma jirto baaritaanno iyo xitaa cilmi baarisyo mug leh oo ku qoran luqadda Soomaaliga. haddii aad rabtid inaad aqoon kororsi samaysid ama haddii aad rabtid inaad xirfad kala baratid, lagama yaabo in adiga oo Soomaali keliya ku hadla aad u baratid xirfaddaasi sida uu u baranayo qofka luqad labaad yaqaana. maxaa yeelay luqaddeenna Soomaaliga nasiib darro way yar yihiin dadka ku hadla ee koorsooyinka sameeya. maqaalada iyo warbixinnada cilmiyeysan iska baddaa warkooda. marka ka dhigo sanadkii aad isbari lahayd luqad cusub